بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد إخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حطم نفسك، حطم صنمك، حطم صنمك وكن عند نفسك صغيرا. وموضوع أصلنا إنير وحكدها إنير. حطم صنمك وكن عند نفسك صغيرا. صنمك كوجد حجرة بربري نفتاذنا أرق وحير. وكان موضوعا رمينا كهذا. لماذا الموضوع وقهر لنا؟ لماذا؟ محان موضوعا ودورني وما صنم يا إنه ودح جرا قف كستوي نجمع إذا ما صنم يربع دح جيفا ماي إن شاء الله إن شاء الله ماي صنم ووحل وينيو ووحل وينيو أو صفات إلهي ولي هي لصيو هجان سنان وينين كبعين كدنبين وهجان سنان صنمك انتهى معناها صار لك الربع مركا هبال وحقه وحفر بدني إني جركين إني نفتين إني كل حجران وهبال قبل كان مركا أنا جوان صنمك وقصوا أماهني وحوي عذر كلا يلاحظوا العجب قف ينوس عجب قليو ها قف ينوس عجب قليو أو اسمه إنه وحيهي ما أنت قفك روح دمر هالنقضة روح رجع هالنقضة مسؤول هالنقضة قف لقى مسؤولية هاي هالنقضة وذات هالنقضة ورا الله هالنقضة فليكن ما يشاء وحدونا هالنقضة ما أنت وقفك وح اسمه إنه وحيهي ها أما أقون اسبذو ها أما أقونتيسا وحسك مودو أقونتيسو إني غير كينا نفسي سنتهاي أما عمل ولا إيمان يوم أما عبادة هالنقضة أما عمل دعوة ذي هالنقضة أما عمل الدون هالنقضة وعمل كيسا إسنا إسبيضو إنه دتك واحد نفسي سنيه واحد يرسن يهي انت سو إذن وحلا إلى ذا وعجب إسعجب قلين marka cudurka cidii laga helaa waxay u tahay muqaddima ayaa waxay u tahay inuu qofkaasi sanamyada ay tahay in laga takhaluso inuu jirkiisa dhex jiifo oo uu wali naftiisa ka xoroobin saaso kale lidalika mawduuca waxaan rabnaa inta aynanu sanamyada dibadda la dagaalamin qofku inuu la dagaalamo bal horta naftiisa inuu ka taahiriyo bal wax inuu ismoodo mawduuca sababtaas aan uga hadlaynaa oo shaki kuma jiro inaanu qof kasto inaga mid ihi inaanu marnaba ilaahay subhanahu wa ta'ala ka maarmin wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إلهي وحو إذن كسو ساري من بطون أمهاتكم هو ينكين با إذن دالي إذن كأو لا تعلمون شيئا وح أدقرنيسيني آنو جيرين وح أقون أو أدقرنيسي آنو جيرين أذو جاهل أيان إذن كسو ساري بيور الله caloolaha hooyooyinkiin oo daciif ah markaasa waxaan kuugu daray waa Allah waja'ala lakum as-sam'a maqal wal absara arag wal af'ida wa qalbiga intaasoo waa culimadu ay yiraahdaan waa saddexda wasiilo ama waa saddexda wado ee cilmiga lagu hanto sam'un iyo basarun
iyo fu'aad weeleeya oo fahma oo hadhow toole ka nuuga wixii uu ka fahmay axkaamta Allah subxaanahu wa tacaala idan idinkoon saddexdaas aan ka faa'iidaysan karaynin oo si aad aqoon u lahaataan baan Allah subxaanahu wa tacaala nicmaduhu inagu galladay ayay ka mid tahay waata markaa keentay adkaarta uu nabigeennina baray sallallahu alayhi wa sallama ee loo bixiyey waa geedadka jannada qofka doonaya inuu jannada beer ku lahaado waxa aad badisaa laa xawla walaa quwwata ilaa billaahi xiilad malihi quwadna malihi ilaa mid xagga alla ka timid mooyaane subxaanahu wa tacaala waa addoonnimo darajadii ugu dambaysay qofku markuu taa dhadhansado ama xoola ha lahaado ama magac ha lahaado ama ha ka dhasho dad caan ah ama ha lahaado wax allaale wixii loogu soo istaagi lahaa ama faqiir ha ahaado wasiir ha noqdo xaqiir ha noqdo wax allaale waxaad doontid noqo laa xawla xiilad malihi walaa quwata quwadna malihi ilaa mid allow xaggaaga ka timaado weeyaan taasaa markaa waxay gashay adkaarta ay tahay inaynu hadh iyo habeen afka aynu ku hayno si aynu u sugno addoonnimadeennii innagu inaan addoomanahay iyo ilaahay ilaahnimadiisii alrububiyata waaluluuhiyatana ilaahay in loo sugo adiguna aad isku qirtid alcubuudiyata allaahumma anta rabbii laa ilaaha ilaa anta khalaqtanii وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سيد الاستغفار استغفار كسيد كيس النبي صلى الله عليه وسلم أو نبي الله آدم عليه السلام مركو سو حجي عرفة أو عرفة استاغي أو لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك وقري أيام cid allaala ciddii carafo tagtaa waxa ay jadiidisaa ahdigii marka aynu ahayn ruux caalamul arwaaxi markaynu ku jirnay waid akhada rabbuka min bani aadama min duhuurihim waashhadahum calaa anfusihim alastu birabbikum qaaluu bala markuu ilaahay subxaanahu wa tacaala nebi aadan dhabarkiisa uu ka soo saaray durriyadiisoo idil iyaga oo arwaax ah intuu hortooda keenay uu maalin carafo ahayd jabal carafa ahayd jabal raxma ahayd ayuu alla ku yidhi war anigu rabbigiin ma ahay qof kastoo ka hadlaya iyo intiina dhegaysanaysaa qof kastoo inaga mid ihi maalintaa waxaynu nidhi bala shahidna allow adigaa noo rabbi ah innagoo ruux ah ayaynu hogaansanaantii ilaahay qirnay kadibna arwaaxdii ilaahay waa sugay ilaa inta uu qof walba uu qadaraya fi lawxi lmaxfuud meesha iyo goorta iyo xilliga uu dhalanayo taasaa waxay keentay cid allaale ciddii soo xajida ee ilaahay uu u qoraa inay ballantaa ay ruuxeedu u galay in ay ku jadiidiso marka ay tagto carafa oo labayk allaahumma labayk labayka laa shariika laka labayk la yidhaa waaya dadkoo dhan ma soo xajiyaan nabiguna sala allahu calayhi wasalam si aynanu u iloobin ahdigaa iyo ballantaada hore u gashay waa addoonnimadii ayaa imika xadiiskii iminkaan akhrinay ahaa ducada istighfaarka ayuu nabigu ina baray oo aroortiina mar baa ina la yidhi akhriya gabalku markuu dumana mar baa ina la yidhi akhriya oo maxaad leedahay wa ana cabduk addoonkaagii baan ahay ma intaasaa keliya may wa ana calaa cahdika ballantii aan kula galay ruuxaygu ay kula gashay fii jabali carafa inaad rabbigay tahay weli cahdigii baan ku jiraa baad leedahay habeenkiina mar baad leedahay aroortiina mar ayaad maxay toole leedahay hada laa xawla walaa quwata ila billah wuxuu aad inooga digay nabigu sallallahu alayhi wasallam shirkiga waa inooga digay quraankuna waa inooga digay bal wuxuu quraanku inoo sheegay hawshii ay anbiyada ilaahay qabanayeen oo idili inay ahayd midnimada ilaahayna illa sugo shirkigana in la dagaalamo oo la fogeeyo anbiyada ilaahay oo idil baa hawsha maxay toole qabanayay wuxuu aad inooga sii digay waliba nabigu waxaan la yiraahdo ashirk al-khafi shirkiga dadban ee qarsoon waa kan rabna inaynu maanta xogaa aynu kor istaagno oo aynu cujbiga soo hoosgeli doona
ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق وحلمد يا هيبير الله سبحانه وتعالى قفك إلهي الشريك يالا واحد مودائن السماء كسر دعي فتخطفه طير مركاسي شنبروه لك لبوبان هلب كيسة أو تهوي به الريح في مكان سحيق أما الدبيش أيام ميل عدلة فوق كتورته وحويا وتصال مادئة barigaa laga yaabaa inaanay saxaabadii nabiga sallallahu alayhi wasallam inaanay sawiri karaynin fakaannama kharra min as-samaa laakiin maanta markii diyaarada la sameeyay iyo helicopter iyo wax cirka dawladda ilaa dhulka la socodaya qofka imika diyaarad ka soo dhaca 17,000 oo mitir diyaaradda kor maraysa qofka isagoo parachute xambaarsaneen la soo tuuraa dareenka uu dareemo oxygen la'aanta laabtu sida ay ciriiri ay u noqoto ee gudaha uga dumo ayuu quraanku sii sheegay marka saxaabadu radiyallahu anhum dafakaannama kharra min as-samaa waxay meel yaro dhow inuu ka soo dhacun bay macnaha ay malaysanay laakiin maanta adigu zamankaagii horu maray wuxuu ku tusay macnaha ay leedahay qof meel dheer laga soo rida sidaas uu la mid yahay biir qofka mushrika ihi bimaana ma degana qalbigiisu ma degana sakiinad ma leh طمأنينة ماله ما هجاكسنا سعود كيسو موعنا لقن كيسو ما هجاكسنا لأنه سيدو إمام ابن القيم رحمه الله ويري قف لابت وحا جرا قلبك وحا كجرا ويري إن يرى ميل مرن بقلبك كجرتا وحا كلية أبوحيا وإيمانك الله سبحانه وتعالى الشرك الخفي أو نبي نوغدك صلى الله عليه وسلم شركك قرصوني وليبا كسي قرصون جنع هذا جنع صغير هذا جنع dhagax madow dul socda oo habeen madow ay tahay meel arki kartaa taasuu nabigu nagu yiri shirkigu sidaas u qarsoon yahay bi nabigu sallallahu alayhi wasallam bimacna adigoo isku haysta inaad okay tahay kullu shay'in tamam salaadii oogaya cibaadadii ku jira xijaabkaagu okay ku yahay cilaaqaadkaagu okay maxay tahay waxba aanaka ay wax yaro hoose wax yaro adun baan is og qofka ku ag fadhiyana ma oga safka qofka kugula tukanayana ma oga saaxiib sokeeyahaagu ma oga cid qofka iskugu dhowdihiin ma oga adun baa is og waxa yare hoosta ka gunuusaya ee aan safka wali aan toosinaynin hada huwa shirku al-khafi وواحد ضبن أوفق أو كشك يلا لابته كسيفق أو مرمر بوسوم حايسقو قرمون إسهين كري ويدا الربك حدا أو وجهه موجيا وكاسات ترى يرقري إير جهدي وين بات ميسا إن عبرسيد والعليسيد باش يساعدك عليسيد هذا الشرك الخفي والنبي صلى الله عليه وسلم إنه قد جاي أن ربنا إن ما أنت إن شاء الله تعالى وقت الله كرجة وقت يلاقي إنه بركة إن محيطه لكو أجار كيس عن كهذا النوع العجب إن عجب جلسة بل يسوي حيري إمام عبد الله بن المبارك رحمه الله ورضي الله عنه يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب جهبد من جهابذ الأمة أمير المؤمنين في الحديث لح بلودنا الجهاد في سبيل الله بحجر خراسان بنصر دقال مجرى قال الجوغة لح بلودنا حرم كالنبي صلى الله عليه وسلم بكتب كأخري جري مقاسا مال معها كم يذو أرضي كتغي صاحبك فضيل بن عياض كتاب الشفاء نكي قري أيا ورقد كدب قري ويريم مساجد كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم علمي aad ka faafinayay baad ka doorsatay meel kale inaad tagtid waa ninkii u soo qoray caabid al-haramayn labada haramayn ninka ugu cibaadada badanow kitaab la akhriyo iyo ilin saqbad la ooya haday cibaado ku tahay cibaadadaadu agtaada anaga waxay ka tahay ciyaar iyo dhayal hadaad dhabankaaga iyo garkaaga ilin aad ku ooyaysid hareeraha iyaga anaga waxa ka qulmayo buu yiri dhiig fi sabiilillah aanu daadinayno hada abdullah ibn mubarak wuxuu yiri al-ujbu عجبك اسعجبنتو أن ترى أن عندك شيئا ليس عند غيرك وإن واحد اسكو شيغيسا إن هيستد وحانو غيرك هيسد وحال لهذا والله أنا دمي بكتبتي با ها إلا قورم ما سوودي باش كوا كلا ما garanayaan waxaad zoolan saano dadka waan ka fahmid dheerahay oo kuwan xogaa illa lagu cilciliyo mooyaane waa aqsad xuma fahmaan أنا عند أرجع بانه وحصو صعدان فيلا وحجوجا ما هو لك هوستي سما إيجو ها العجب أم ترى إن هذا أركتد إن هذا حيستد غير كأنه حيسن
طبعا haysashada iyo waxa lehna ilaahay baa lahu lillahi mulku samaawaati wal ardi wama fiihin cir wax ku maqan iyo dhul wax ku maqan iyo inta u hooseysaba mulkigeeda ilaahay baa subhanahu wa ta'ala waxaana asal ah wixii nicmad ah ee ilaahay uu kugu gallado oo ilaahay uu ku siiyo inaanad adigu isku celin cilmiga adigu ha isku celin dhaqanka wanaagsan adigu ha isku celin xoolaha adigu ha isku celin aqliga adigu ha isku celin caafimaadka adigu ha isku celin xogta hooseed intaba waxa tiraahdaa lillahi ilaahay baa min allah tabaaraka wa ta'ala haga allah ka timid hada min allah tabaaraka wa ta'ala waxa la mid ah ujbiga iscajabinta waxa la mid ah hamdu nafsi naftaada oo mahadisid ya wallah maanta waxa la yodhan ba tukanaye ya laba oday baa soo galay masaajid ayaro kaftana way gargelinaya laba oday baa soo galay masaajid markaas ay dhalinyaro waxay arkeen aad u tukanaya oo si fiican u khushuucsan labadii oday baa yiri niyo kan yari aad buu masaajidka ugu badan yahay shanta salaadood kama tagto bal imikana sidoo uu nuuxsanaya salaada quruxda baleega intuu soo horjeestay bii walibana waan soomanahay ugu darbi soomanahay bii wakaas hagaagsanahay al-ujb hamdi nafsi qofku inuu naftiisa uu maxay toole uu naftiisa maxay toole inuu mahadiyo waxa kamida tilmaamaha ujbigu leeyahay cudurka ah in aad wax allaala waxaad samaysid raali aad ka tahay wax kasto samaysid aad ku faraxdid aqoontaada amalkaaga oo aad adigu aad maxay toole isku celiso wax yarba ha ahaadee wuxuu yiri imaam al-muhasibi wasna caalim weyn culamadii qarnigii labaad qarnigii saddexaad hijriga ah wuxuu yiri al-ujbu huwa hamdu nafsi wa naftaada bahadisid oo ku mahadisid ala ma amalti waxaad samaysay amma alimta in yaro aqoonood ku korodhay wa nisyaan oo aad ilowdid anna ni'ama min Allah azza wa jalla ni'amo idilina ka timid xagga Allah subhanahu wa ta'ala maxaa keena nafteenu inay inala weynaato sanamka yare inagu jira inuu ballaadho maxaa keena 10 qodob oo degdeg aan tilmaami in kamidana waan qaadani intaasaan muxaadarada ku khatimi doona insha Allah waxaynu ku xijini doonaa sidee baynu uga gudubnaa naftan yare xoogaa ina xakamaysanaysa طبعا اسباب jirta sida cudur waliba cudurada jirka ku dhacaaba hargabka ma arafshi ايش هذا ذاك uu leeyahay asbaab keenta cudurkan isaga la yiraahdo ujbiga ama hamdiga naftaada inaad mahadisaana isaguna asbaab keenta koow الجهل بالله عز وجل جاهل لماذا إلهي جاهل كتحي وانك شيكيني لبو الجهل بالنفس نفتاذن كوغو جيرتون اقونين با wax kala oo haysatayna tahay saddex ihmaal tazkiyat an-nafs tarbiyadii iyo barbaarintii iyo layliskii nafta oo ilowdid afar kathrat al-a'mal an-najiha wax kasto qabataa uu hirgala uu saksiira najah madrasadii waa naajix gurigi waa okay dhaqaalay waa ku okay wax walba walima kufitaanku kuguma badna ilaa kufitaanku ilaahay buu soo xasuusiyay wax kasto qabataa waa naajix كثرة المدح أجار كاجا دتك جوجو دبا كوامانيا الله هبلايو لما أرك هبل ما بجربا سلقوا علينا يلقوا علينا يا ماذا سأطب إن أي محيط ولا إن أي تحي لح علو اليد ونفوذ الأمر أظن عدة وباهنو وحاجون أي أمر إن بحسيدو ساسا ما يوم أي ولا سمينس قلة مخالطة الأكفاء أدب مهم يا قلب كاس أذيك أول من dad ka karti badan oo ka sareeyo cibaado iyo cilmi iyo amal ba kaaga sareeya adoon la dhaqmaynin ee waxaad qaadanaysaa mustawa kula mid ah mustawa ka hooseeya si aad garbaha u tustid inaad arkaysa laakiin inuu fadhiga aad la badisid dad ka aqoon badan oo ka karti badan oo ka indheermo badan may laana waxaad arkaysaa inta aad leegta had arkaysaa markaad agfariisatay ulama wal jahabida صغير النفس احير بعد نقرسها ما ندونس لما بقطع لنا لكن ميدو ريمك الف بعد الله بلاابي ميدو ريمك اجروميدا لو يربحته ولا اخرنيو ان يرو ريمك لليهي باب الطهاره اديغو 30 سنه ka dul fadhi bad kuwa ka dhamaan laaday ha hasto yani akano dhageysta ha akifaagi baan ka qayb galaynin tartan baan ka qayb galaynin
بركد بعد خد بالنا ساي بد ما هذه ست تربية الأبوين وهبك إن الله سو بربارية habka in loo soo barbaariyo guri qof kasto inaga midii guri buu ka soo baxay isagoo yar la soo barbaariyay labada waalid habka ay qofka u barbaariyaan oo had iyo jeer la amaano inankayga inantayda soo maaratan waalidiinta waliba hooyooyinka wali ma aragtay hooyo maxay tahay dimka iskuul loogu yeero inankaagu sala Allah inankaygu waxa ma sameeyo inankaygu xagga akhlaaqda aqoonta laga yaaba laakiin ma ku karimaysid kani waa dhibaato haysata ليش تربية أسا مركبة واحد صوص هذا ساقفكي قف إنه نفتيسو أي محل تحي عزيز نفتيسو إنه إلى تحي قفكو ضعيف قفكو إسكيد محيطه ضعيف قضبك اللي حاد الله ينبت باديو الاشتهار بين الناس قفكو دتك هدو كل عان نغضو مشكلة هدي عان ونغضو مالها مركو مربنا واهب لا يسلم وعذر وين يسوون وين حقا إن يروح حق جلسة إسلام محيطه لين وعذر إسنا طبعا كقضبي ويتلمامان وحيابها عجبك يعني طبعا كما كانوا شاكين كريمايو إن يربان قادم الجهل بالله عز وجل إلهي أجاهل لقويه فالله سبحانه وتعالى محاد نفتاذع أقول علمي أود موذي إني وحتحي محاد موذي حدي إلهي والله لولا الله ما اهتدينا سو ما هين أنا شيدي النبي محمد صحابته أي قاضيين صلى الله عليه وسلم الله أنكو دارته هدانو نهانون ما نهانون اسم لهي هانون كالكو النبي يقول علينا الله سبحانه وتعالى إذن أقول أنت قفكو آنو قرن نعمدني من الله تبارك وتعالى إني تهي قدرد لأنت وقدر الله يا الله وما قدر الله حق قدره قدر الآن تاسنا وحي قفو كلفتا إنو نعمدها إله إنو سوي سكون نصبه أو يارو ولا إن شئنا نبي محمد بن إله إلا الله صلى الله عليه وسلم ولا إن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا هذا رسول الله إله إلا الله ولو شئنا هدان دون النبي محمد صلى الله عليه وسلم أذيو آخر الأنبياء حبيب الرحمن سبحانه وتعالى أيا حجري ولا إن شئنا هدان دون لنذهبن وان علم بالذي شيء أوحينا إليك أن كوجو وحيوني قرآن كها قرآن كلفتي سهدان دونه دبان كهجلان تقول نقول سو قرآن كن نعمة إلهي ما نعمة نور كأه هدان دونه بوي الله سبحانه وتعالى وان كهلان نقول ثم لا تجد لك به علينا وكيلا عد كاجا وكيلا إن سوء لينا أكتر إذا كهلي مسجد محمد صلى الله عليه وسلم ما أرنتا إيجاها إلا رحمة من ربك نحريس وربك كون نحريسنا يا كوجها يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم إن القرآن كان نعمته إن أنا كالا نقول إن فضل إلهي وكل يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم كان عليك كبيرا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيال اللي هي قرآن كان يا وحي كان يا نور كان يا صراط كان يا شريعة يا حق كان يا افتين كان هاسكن نسبين أذيو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم النسبة إلهي سبحانه وتعالى نرارت أيقشو الله ورسوله أن لورن الله ثم رسوله لورنا تنتبه وان كان نقوم بأنه محمد صلى الله عليه وسلم مركا أرنت هل كان نبي محمد صلى الله عليه وسلم إنه هالكيبين كجوجنا مركا الهداية دي أتكفانتت قرآن كان حفظي يرو عجبه وكوغلو عبادات كي يرو عجبه وكوغلو ood u aragtid dadka dambiilayaasha ku jira adigu inaad jannada joogtid iyagina naar inay dhex fadhiyaan ood kor aad kala soo hadashid halkaad u daadagi lahayd gacmaha qaban lahayd oran lahayd kadalika kunna famanna Allahu alayna sidina soo kalaanu ahay ilaahay baan hanuuniyay fadligan aanu joognaa ku jirnaa maanta mid aanu ku haysano ma aha aqoon iyo abqariyad nagu jirta xaq Allah ka timid ilaahay wuu karaa inaad saa'atihiin annaga inuu naga dhigo sidaa tihiina inuu idinka inaga dhigo yaf'alu Allahu ma yasha كي دارتي والله لا يغفر الله لفلان الله كو دارتي هبل الهي ذنب دافي مايو فاوحى الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبي الله سبحانه وتعالى محمد وحيوده كو يري من هذا الذي يتأله علي الا اغفر لفلان وانك دارنيا اسهبا ان انا هبل ودافين ذنبيسا وايو
فأوجو بيري ذنبي سوان دافي أذيك عمل كاجبان هو بيبي الله سبحانه وتعالى هذا هو النظرة أي تهينا نؤجنو مذنبين مسلمين ذنبك كجرا عصادة دعوة كفوق غفلة كجرا هنونك كفوق وإن لو إجين إن يهين ضد محيط ولا خلاص لكن وإن لو إجا ضد مبتلين ابتلاء من الله تبارك وتعالى وكس عضو وباهن قعنا حريصة ومحيط إلى الله تبارك وتعالى وسوء دويسة حديث كي قدسي وحا كجري يا عبادي إنما هي أعمالكم حديث كديراء أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه حديث كديراء آتكم معنا إلهي ألوهية دي سكشكين سبحانه وتعالى يا عبادي بيقول الدوامها يقول إنما هي أعمالكم وحكى لماها anigu inaan idin cadaabo oon jahannamo idin geliyo oon saqara idin geliyo oon xutamo idin geliyo oon qaaraca idin ka daba diro oon xaaqa ma yaf'al illahu bi'adaabikum wa inaan idin cadaabo kuma macaansanayo bil Allah subhanahu wa ta'ala ya hawl ilaahnimadayda ka sarreysa weey inma hiya a'malukum wa wixii intaad nooladeen aad qabsateen uxsiha lakum waan idin aruuriyay meel baanan idin ku qoray وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا خلصنا قف والبا كتاب كيس قورتان أسرى بي الله سبحانه وتعالى هل كاسانا كلا حساب تمد دارتا يوم القيامة إنما هي أعمالكم وأعماشي التي مادين أما خير هالنقطة أما شر هالنقطة ربوا أذوها وشاذ وامحي محاط ناقبتي أحصيها لكم وأنا إذين قريون ثم أوفيكم إياها وأنا إذين كأبا المرين يا دارت يوم القيامة أعماشا فمن وجد خيرا قفكي مركا الله حسابتم خير هلو فليحمد الله مركو قفكي خير هلو فليحمد الله ما هدي إلهي يعلي هاوران وان شقيستي sidii ninkii 500 sano yahuudiga ahaa ayna looga sheekeeyay aad ilaahay u cibaadaystay 500 caam 500 sano cibaado ku jiray yacbudullaha kathiira markaas markii la xisaabtamay baa waxa la yiri jannada geliya naxariista ilaahay jannada ku geliya markaas yiri may bal bi amali 500 baan sanaan foorsanaaye wax ma hay naxariistu hay noo dambayso laakiin 500 aaway markaas la yiraahdaa ma xisaab diyaar u tahay taala habiibi wallahu yeeray waxa la yiri 500 sano meel dhiga meel lagu kuusay waxa la yiri nicmadaha ilaahay kamida isha araga la yiri soo qaada araga loola miisaamay 500 sano wuxuu amal la yimid nicmadii araga ayuu gudi kari waayay 500 sano cibaado ku gudi kari waayay markaas ay hay xisaabta ka waran idhabu bihi ila an-nar hadaba xaqa ula carara markaas uu bal bi rahmatika ya rabbi rabbu naxariistaada buu muxtulay marka ma aha kathratu salaatin ma aha hatta nabi sallallahu alayhi wasallam kii nagu yiri kathratu amal ku gali maysan jannada markaas ay kuwa wala anta ya rasuulallah adigu hataa miyaanad isku galeeyeen amal markaas uu anigu hataa amal jannada kuma galayo illa an yataghammadani allah bi fadlin minhu wa rahmah illa ilaahi kordhigo fadl xaqiisa ka yimid iyo naxariis mooyaane amal engegan oo ii xisaabtamo waan akhriyo quraanka 10 iigu dhufo مقرأ wadaadada minka qaar ba markay dadka wacdinayaan waa xisaabiyaan 10 maqrad akhrida intaas oo aayadood baa ku jirta midiiba maxay toolay waa 10 maxay toolay ku dhufo calculation ka lagu dhuftaa intaas oo milyan oo ajir baad heshay waa sidaas ilaahay lagu dhaqmo subhanahu wa ta'ala xisaab xirbar ilaahay la sameeyna waxa weeyaan waa qabuul kathradii maaha farabadnaantii maaha ee waa maxay sidoo Abdullah ibn Umar xadiiskii saxiix ahaa uu ku yiri mawquufka uu ahaa isaga إلهي وحان كرجيني بير سجدت كلي أو أن أسجود إنه إجا أقبله مكاسير هذا صدق ابن صحابة رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم يري إنما يتقبل الله من المتقين هديئوا إجا أقبلون سجود كليئة وحي مرخاتك تهي متقين تإن أن كم ذا الله إجا أقبله سبحانه وتعالى كاسي وحويان الجهل بالنفس الجهل بالله
ilaahay oo qofku jaahil uu ka yahay oo aanu aqoonin allah sidee loola dhaqmaa subxaanahu wa tacaala qodobka labaad ee keena alcujb qofku inuu ismahadiyo waxaa ka mid ah aljahlu binnafsi adiga oo naftaadaba aan garanaynin oo jaahil ka ah qul laa amliku linafsii nafcan walaa dura ilaa maa shaa allah naftayda qul ku dhan nabi maxamed sal sallam ummadaada naftayda anfacna uma hayo dheefna uma hayo dhibna uma hayo ilaa wax xagga allah subxaanahu wa tacaala maxay tole ka yimid hada hu idan fahamka aad fahamtid naftaada oo aad og tahay inay muqasir tahay oo gaabinayso subxaan allahi alcaliy alqadiir malaa'igta ilaahay bal fiiri xadiiskii nabigu nagu yidhi sala allahu calayhi wasalam atat isamaawaatu waxuqa laha an ta'id فوالله ما فيها موقع 4 أصابع إلا وفيها ملك ساجد يقول سبوح سبوح قدوس قدوس ربنا ما عبدناك حق عبادتك منذ يوم خلقه الله samadii buu nabigu sallallahu alayhi wasallam culayska malaa'igta saaran awgeed waxaad moodaa sida loox aad meel dhigtay oo culays badan aad saartay sidoo looxu u ciiro ayay samadii u soo ciirtay buu yiri malaa'igtan faraha badan ee saaran الله ku dhaartay buu nabigu sallallahu alayhi wasallam afar farood meel la dhiga samada kama madna ilaa uu joogo malak malaa'igta ilaahay kamidoo fooda dhulka ku haya maalintuu ilaahay abuuray ilaa yawmal qiyaama saddexda kelmadood ku celcelinaya subuuhun quduusun rabbul malaa'ikati war ruuh rabbana ma abadnaaka haqqa ibadatik sarreeya subhanahu xumaanow idilka sarreeye rabbow cibaadadii aad u qalantay ilaahnimo inaan kugu caabudo kumaan caabudin hadda wax kale ma hayaan foodun bay dhulka ku hayaan waa hawshoodu waa intaa hada huwa markaad ogaatid adiga 5 salaadood tuko 25 daqiiqo waa marka aad ku tukatid tajwiid muratala bal jamaacadana gaad inta yaro maxay tolay ramadaan nasuk zakana hadaad haysatid maxay tolo iska bixi ummadana gacantaadana ha ka nabad galaan afkaagana ha ka nabad galaan khalaas inta hadaynu isku moodna ka warrama inaynu hawl weyn inaynu qabanay oo nafteeni yareed aynu u haysanaba inaynu nahay shay cajiib ah aynu maxay tolo u haysano halkii aynu taqsiirka aynu maxay tolo ku waajibi lahayn ihmaalu taskiyat an-nafs qodobka saddexaad waxa aynu aad u yaraynay oo inaynu isku sheegin oo aan hadalladeena ku badnayn تزكية النفس نفط أو طاهريو هو بالوحة هذو ما انتهى الجبين نقول دعوه أما جلكينا كسو دق عذر الله ينقص الرئيسية أما المهين وحيري أي جاران هو بالوحة هبين كائنين نسيحنين أما واجا وجوه الرئيين ندقدقي سي أين أسو أجانا المهاير قفعية أما قفك حمد هايسته أما قفك حلي بقى هايستي سي أن دختر هبل وقطعه أن هذا محاهية دقدقنا الدودة نسو يبسنا سو جلكينا سا ولا ما تعاملنا ساسين جلكينا ولا تعاملنا كورا لكن هذا صلاة كتير صلاة المغرب يمكن هيسة ومركع سلام النقصتي أد جرون ويدو حلال واحد تكتي وحتى إلى وديد إمام كي كتوكيي عايضه هي نقول توكيي عايضه هي جهرجها هذا ويديس استجابينا ما كان توكتانا صباح أنا أصحابتي أنتي صاحب جس ويديه وأنا ركعتي هروب تمحي نقول توكيي أكرم ما هيون يا الله يا ما نذكر markaas salaada boqolkiiba 50 boqolkiiba 60 maskaxdeenu way maqamtahay Allah subhanahu wa ta'ala xagga aad ku sujuudaysa ayuu ka xiga marka aad tukanaysid hadaad jarjarsid oo hareeraha adeegtid ilaahay wuu kula hadlaa wuxuu ku yiraahdaa nafta adoonkaygo cidda ii ka dhaanta ee u jeejeedsanaysa iga jeedsanaysa waa ayagu Allah yiraahdo subhanahu hakeed iga maqantahay adimka boqor ku yeero ama madaxweyne ku yeero ama nin qiimaha qaayela ku yeero habeenkii oo dhan baad sii diyaarinaysaa waxaad xiranaysid meesha aad fadhiisanaysid hadalka maxaad ku bilaabi dhex maxaad kaga dhigi maxaad ku khatimi maxaad weydiin ma dhul iyo adduun mise gaari yaro zaxmada hargeysa ka saara habeenkii oo dhan seexan maysid saad isku rogrogaysid ka maxaad ku oran britoola ballanta aad la leedahay
أما الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 7 المثاني تضبطي اللي قول لابني الركوع إنه فورسيني أود ربك أظهر جوتي هدات كما قنتهي كور وايه كما قناش وميل haddaad dareemi weydid qalbigaagu inuu buko dawo degdega u baahan yahayna ka war هذه المشكلة markaa mushkiladu waxa weey markaa jasadkan caadiga ah ee 4 maalmood 5 maalmood kadib marka la aaso baaba'aya in yaro biyo ah in yaro protein ah in yaro carbohydrate ah in yaro bir ah in yaro magnesium ah in yaro calcium ah in yaro phosphate ah in yaro nuurad ah inta way jirkeenu بس هدي لا اسكو دردرو او امك اتراهيد هدي waxa bir inagu jiro dhan la keeno waa laba busmaar hadii la keeno nuurada maxay tolo inagu jirta waa laba kiisho yar yar hadaa doontid inaad hargeysa ka soo iibsatid inta qodob ee aan sheegay $70 ma aha gabigooduba waxa jirkeedu ka sabaysan yahay lidaalika marka qabriga la dhigo isla markaaba baabaa soo maaha maxaa hada laakiin ruuxi ayna ruux روحي هي النفط إلهي سبحانه وتعالى تبقى باقية هورنا ويجرتي انت آن أورك هو يدا لقو ردنا ويجرتي وحديثك صحيحة هاي النبي صلى الله عليه وسلم الإسراء والمعراج أبيان يف هذا أكفر ده بيها يف كلك فتمية ايك مركي إسراء والمعراج كان النبي صلى الله عليه وسلم للرفعي أيها وحي أتغي نبي الله إبراهيم عليه السلام وحق مذقنا وحفر بدنو مذوبي كحيو حق بدحنا وحفر بدنو مذوبي كحيو والله هذا النبي محمد يا خليل يا أبا الأنبياء نبي إبراهيم مركو دنك ميديق ايغو وفرحايا وقصلا مركو دنك بدح ايغنا ونحا تخط مركاسو النبي كيري صلى الله عليه وسلم دول كان اد مركو ميديق تايغا سيدنا اد فرحايسيد مركا كلنا اد نحايسي وا ايو markaasuu nabiyullaahi ibraahim ku yidhi waa arwaaxdii ummadayda inta aan weli la uumin ilma aadan waxay arwaax ay lahaayeen oo idil baa nabiyullaahi ibraahim hareeraha ka fadhiya kuwaa midigta iga xigaa buu yidhi waa maxay waa kuwii camalkoodu saalixa ahaa waaniga markaan jalleecdo farxaya duulkaa bidixda iga fadhiyaana waa duulka camalkoodu ku dhammaan doono suu alkhaatima markaan arka ayaan maxay toolay marka ruuxaagu ilaa halkaas uu jiray ruuxaagu uu nool yahay naftii markii lagugu abuuray ee 40 maalmood caloosha hooyada aad ku jirtay 40 kale 120 habeen markaad jirtay ayuu malakul jibriil ruuxii naftaada ku abuuray qadar baa ku qoran nololeed oo geeri baa ku xigta kadibna ruuxii naftii jasadkii dhulkii laga abuuray buu ku noqdaa بيه بيو نقضى فوسفات بو نقضى مغنيسيوم بو نقضى خلاص إلا عجب الذنب أياه كهرب النبي صلى الله عليه وسلم لكن نفط ماشي مهم كأي تهي إلا برباريو إلا إيجا إلا نهي تزكية النفس أياه إنك مقن وروحنا وقلبنا وفؤادنا ومركا آيذها إلهي آد مقلي سوء سيديبو يا حال كاكو بيصير بدشاء وعد يقول مكو بدلاء مسلمين تدبت حيستام مكو ساميسا markaad macaasida iyo macsiyada markaad aragtid inaad waxba ka qaban kareynin ma ciishota oo ilaahay ma tiraado waxba qaban kareeyeen kuun adigu si ugu tali hada huwa tazkiyatu nafs inuu ka tagno qodobka shanaad كثرة المدح إن آد لغو أمانك فرح بدل ما فينا وكي النبي صلى الله عليه وسلم أركي نن أمانيا ولالكي هرتيس وأماني ما كان سوى النبي صلى الله عليه وسلم ويحك وريا قطعت عنق صاحبك ولالكا قورتها كجويسي بيوري بمعنى واد لجويسي ولالكا واد لجويسي لو سمعها ما أفلح أما أنت أتكل العلم سهدو قاطع أو إسناء رميستو ولي ليباني ما يبي النبي صلى الله عليه وسلم مركا المؤمن مرآة أخيه
xadiiskii kale oo walaalka iyo walaasha wanaad muraayad u noqotaa muraayadu markaad hor istaagtid saxarka yar ee kugu yaala waad ka aragtaa soo maha muraayadu been kuuma sheegto wixii walaalka wanaag aad ku aragtidna u sheeg wixii laablaab iyo walaasha aad ku aragtid si yaroo gaaban de diinu nasiixa tilmaam laakiin madaxiga faraha badan iyo ammaanta faraha badan ma bannaana tobankii qodoban idiin tilmaamay shantaasan kaga eekaanayaa inta kale lacala allah meelaha inaad u raadsataan naftaada oo ku cajab gelisaa oo naftaada oo aad mahadisaa khatarta ay leedahay eeg wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam saddex qofka way halaagaan shux mutaac bakhaylnimo loo hoggaansamo wa hawa mutabac hawadaada oo la dabagalo ood addoon u noqotid wa icjaabu almar'i binafsih iyo naftaada oo aad mahadisaa saddexdaasi waa halaag buu nabigu sala allahu calayhi wasalam shux mutaac wakhtigaagoo diinta ilaahay aad kala bakhayshid xoolahaagiioo diinta ilaahay aad kala bakhayshid maankaagiiyo maskaxdaadiiyo maxaytole aad la bakhayshid ood wax kalena aad deeqsi ugu tahay diin ilaahay iyo gargaar alla markay timidna aad bakhayl aad kala noqotid shuxan mutaac buu yidhi iyo hawaa mutabac adiga oo og xukm allah xukunka ilaahay arrinta qaala allahu iyo qaala rasuul sal ay kuu caddahay inaad agmartid hawadu waa taas haddaanad ogayn xukunka allah arrintaa uu ka qabayo nebigu sal slam jaahil baato waa lagu bari mushkilad maaha haddaad ilowdana waa lagu xasuusin mushkilad maaha ee maxaa mushkilad ah adiga oo og inuu xukunka ilaahay sidaa uu yahay oo geedka go'an ay tahay muran madoonto ay tahay marka aad agmartid waa hawa hawadaadii baad ka dhigatay markaa ilaah duun allaahi tabaaraka wa tacaala ma aragtay qofka hawadiisa ilaahay ka dhigta min duunillaahi soo ilaahay qur-aan ma odhan waa maxay waa xaqood og tahay oonu muran kaaga jirin oonu madmadoobi kaaga jirin oonad wadaadna u doonanaynin fatwana aanad ka raadsanaynin laabtaadana waxari kaaga jirin sida cadceedda aad u arkaysid inuu xukunku ilaahay sidaa inuu yahay oonad u hogaansamayna aad agmaraysid hawa mutabac iyo وإعجاب المرء بنفسه marka asal maxaa u ahaa ibliis soo maha ibliis baa aabbo u ahaa aadam calayhi salaam u sujuudu taxiyata wa taqdiir laa sujuuda cibaada ahaan ha caabudunoo rabbi keligii baa loo sujuudaaye ixtiraam iyo taqdiirin u hogaansamo aadam calayhi salaam icjaabu lmar'i binafsih maaniga buu yidhi maaniga ayaa maxaan aad ciidda iyo dhoobada iyo waxaan la gargaranaynin iminka aad ka samaysay hal ataa cala alinsaani xiinun min addahri lam yakun shay-an madkuura 40 caaman baa nabiyullaahi aadam fi ljanna la garan laha muxuu yahay waxaan aan la garanaynin iminka ciidda iyo dhoobada aad ka samaysay aad anigii dabka iyo wax laga sameeyey intaasoo dhan ku caabudi aad leedahay u hoobso mushkilad icjaabu lmar'i binafsih naftiisii buu isla yaabay naftiisii buu cajab gelisay waata isaga iyo durriyadiisa ku xukuntay ilaa yowmi ddiin inay jahannamo inay maxaytole ku jiraan icjaabu lmar'i binafsih laakiin nabiyullaahi aadam calayhi salaam markii la sharfay ee la siiyey jannadii ee cun la yidhi ee cab la yidhi ee la yidhi geedkaa yar iska ilaali ay naftiisa waxoogaa geedkii maxaytole uu cunay fatalaqaa aadamu min rabbihi bikalimaatin faatamahun fataaba calayhi khlisna khalaas mu adkaysan nabiyullaahi aadamo ma odhan geedka adigu halkan maxaad iigu keentay haddaanan cunaynin markuu dembi galaba isla markiiba wuxuu ogolaaday inuu dhacay oo uu dembi u galay toobad ayuu la yimid waana laga aqbalay farqigaasaa u dhexeeya ibliis iyo aadam calayhi salaam ibliis wuu qaldamay laakiin qaladkiisii buu ku sii adkaystay waanu diiday ilaahay inuu hogaansamo aadam calayhi salaam aydan akhta'a amarkii la siiyey ma qaadanin waa kii geedkii cunay laakiin miyuu ku sii adkaystay kuma sii adkaysana markiiba toobad degdega ayuu maxaytole isaga iyo xaawa labaduba toobad degdegay maxaytole la yimaadeen jannadii baa laga soo saaro waynaga ilaa maanta tarbayna ilmo aadam aynu maxaytole aynu nahay idan icjaabu lmar'i naftaada oo ku cajab gelisaa waa muhlik waanay kullu goynaysaa jid qalad ahna way kugu ridaysaa waxaa kaluu icjaabkuu sameeyaa marka aad tukatidee salaadaada ku cajabiso eed soontidee soontaada ku cajabiso ee aad xiriirisid dadkee xiriirkaasi ku cajabiyo ee aad hadashideed hadalkaaga ku cajabiyo ee aad bixisidee bixintaada ku cajabiso ee aad istaagtidee socodkaaga ku cajabiyo ee gebigaagii baad ka dhammaan weydid soo mushkilad maaha yaa ayuha aladiina aamanuu laa tubtiluu sadaqaatikum bilmanni waaladaa
war sheegitaan aad sheegataan waxan aad sadaqada ula baxaysaan iyo dadka aad wax siisaan oo hadal xun aad daba dhigtaan amalkiina yaanu idinkaga hoobane halla imanina buu leeyahay nabiga sallallahu subhanahu wa ta'ala akthar min dhalik inta ka sii daran naftaada oo aad mahadisaa waxa ay qofka u hogaamisaa carada ilaahay iyo fogaanta ilaahay subhanahu wa ta'ala nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wa sallam aad u dhageysaa man ta'azzama fi nafsihi واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان من تعظم في نفسه قفك نفتيس لويناته واختال في مشيته سعد كيسنا عجب قليو ومر بدن ها واختال في مشيته يركاي مقلاي لقي الله إلهي وحو لك الماء وهو عليه غضبان isagu ilaahay u cadhaysan yahay qofka ilaahay subhanahu wa ta'ala la kulma marka xadiiska nabiga dhageysan sallallahu wuxuu yiri man ta'azzama fi nafsihi wa ikhtala fi mishyatihi laqiya Allah wa huwa alayhi ghadban qofka naftiisu la weynaato ee naftiisa waxaan ahayn arki waaya socodkiisuna uu faan iyo kibir uu had iyo jeer ku jiro socodkaan waxaad gelisaa hadalka geli araga geli hadalka geli wax walba inuu ku faano faanka jacel faanka inuu faano qofku ku faana reerkiisa odaygiisa islaamtiisa caruurtiisa xoolihiisa aqoontiisa reerka uu ka dhashay qabiilka taas inaga aad noo khatar soma Allah khatar harb ahliya dagaal ha inta ka hore ka adkaana laga yaaba bareeraha la tartansiinay iyagana iska daayay hadaba ilaahay baa wada abuurto waa adoomihii ilaahay marka qofka isaguna waqtaala fi mishyati socodkiisa ku faana ama reerkiisa ku faana ee sheegta anagu waxaanu nahay ha samadahan ka soo dhacday ha iska taabaan la shay ولقي الله إلهي وحو لكلما وهو عليه غضبان isagoo Allah u cadhaysan yahay ayuu la kulma idan taasubka naftaada ee ku dhamaanaya reer aad sheegatid iyo wadan aad sheegatid iyo calan aad sheegatid iyo wax aad sheegatid anagu dadka laba mid nihin ha العيال عيال الله والعباد عباد الله والأرض أرض الله الضومه إلهي بانهي عيالك إلهي بانهي لكان إلهي باله يورثها من يشاء من عباده عدوا دون إلهي ودحل قلي الله سبحانه وتعالى أين الملوك ذوي تيجان من يمن وأين ما ساسته في الفرس ساسان آوي بقرد يمن آوي وياهي سبا قرآن كي نوغا شيكي آوي فارس يا بيرشيا بقرد ساسان للك آن لغين جرين اللوغو لجرين الذهب كي يسبرجت كآوي راحوا كلهم مركا أذقونا يا أنيقونا كواسين دبضا محيطونا كوهينا عجبك اسم هادينتو وحي قفك أوحن بارتا ما أي أوهر سيدا الخذلان إنو إلهي كهوجيو وعدم التوفيق توفيق لإنو كأجمريو والتعرض للفتن حتى يجير إنات فتنك محيطو الأبا بعد كتير دائما لأن محل لغا قادة يا daboolkii ilaahay baa laga qaadaya Allahu akbar bal daboolkii ilaahay hadii laga qaado ka war awradaadi ceebtaadi dhacaagi wax walba toosh ba saaran marka ismahadintu waxay u hawsada qofka al-khudlan hoojin xagga Allah xirmaan tawfiiq bad lagu agmarinaya والتعرض للفتن دائما فتن اذا اخرج يده لم يكد يراها اي دائما متعرض كنت فتن ريركي فتن صاحبك فتن دعوه يدينتا فتن افرتا دينتا اسلا ودان مشكله ما انت صحابه مكه فرين برسول الله صلى الله عليه وسلم اي اصنامتي مكه بربريي ابو سفيان سو مسلمي حاسكيسنا سو مسلمتي ها النبي صلى الله عليه وسلم سقوا عمامة أخضر أحرا صلوات ربي وسلامه عليه ما هطلت الغمائم بتهتان المطر عمامة أخضر سقوا أحرا وفرس كيسي سارنو قد كيسة صلى الله عليه وسلم انتو صلى دبركنا صلى فرس كي كل دعي دبرك soo liiciyay si aan loo moodin nin magaaladii furayo kibrayo shafka dadka tusay arkaya maqlaaya tawaaduciyo adoonimo isagoo muujinaya qaabuuska faraskiisa meesha hogaanka lagu hayo dadku nabiga ku hay sallallahu alayhi wasallam makoo dhanna waa isaga u hogaansan tahay aku xunayn tagay markaa xunayn bit saxaabadii baa is eegay ragii madiina ka yimid
intii yareeda iminka soo muslimtay maka ka soo muslintay wallaahi bay yidhaahdeen maanta eeg ismahadinta eeg wallaahi bay yidhaahdeen maanta hee inaanay cidinay naga badinaynin maanta cidinay naga badin maysa oo maanta ma yarin haddaynu beder 4 ahayn uxudna 4 ahayn axzaabna aynu yarayn xamraa al-asadna aynu yarayn ghazwatul muraysi aynu yarayn maanta xunayn wax kala si kala hayna lagu jabiyo tirayna lagu jabin ma yiraahdeen dagaalkii bay galeen intii ugu badneedee reer Makka markaas oo muslimtay baa carartay nabiga sallallahu alayhi wa sallam afar qof intay ku ag hadheen ayuu hadalkiisi caanka ahaa ku celceliyay ana Muhammad ibn Abd al-Muttalib ana nabiyullah la kadhib sawa sayf yar haysta ina Abd al-Muttalib ana hay rasuulki ilaahay baan ahay been ma sheegayo cid waqtiisa ka waay nabiga sallallahu alayhi wa sallam markaas uu yeeray aaway reer muhaajiriintii aaway ansaartii aaway badriyiintii aaway reer baqara iyo aal imraan marba quraanka lagu fakaday bugta rag gooriyo la doonaya waragi baqara iyo umraha yaa uu nabiga sallallahu alayhi wa sallam waadka adka ilaahay quraan dhan buu ka dhigay markay saxaabadu maalinta ay mahadiyeen tiradooda ilaahay wuxuu yiri wa yawma hunayn id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'a wa daqat alaykum al-ardu bima rahibat thumma wallaytum mudbirina حصوصته اذكروا حصوصته ما لنتي دغالكي حنين إذ أعجبتكم كثرتكم وعجبي مركي إذن عجب جلسي تردينو إذ فربلنتهين كلك إنات شيغتين فلم تغني عنكم شيئا ترضي إلهي أكتيس وحا إذن كترتي مجر وضاقت عليكم الأرض بما رحبت للكي آد كركيس سارنايذين ميانو عذيري إذن كن نقن ثم انت كذب وليتم دبرك ميدان جيدين مدبرين حال كونكم اذنكو عرريا ميدان محمد كعرر صلى الله عليه وسلم marka uquubada khudlaanka ah markii dambe muslimiintu way guuleysteen laakiin jabkii hore maxaa keenay maanta cid naga badin mayso way iscajab galiyeen waxa kale oo tawfiiq iscajabintu mahadintu waxa kale inoo koos garay waxay inoo hogaamisaa qofku inuu hawadiisa raaco oo dambigiisa iska iloobo markaad had iyo jeer naftaada aad mahadinaysid ha waliyasaka baytuka wabki ala khati'atika wa amsik alayka lisanaka nabba nabi ku rasuul allah ila dardaaran arabkaaga xajibu gurigaagu ha ku deeqo dunuubtii aad gashayna ka ooy وحصوصه وحي دنبي عاد قشي حديث كي كلا النبي صلى الله عليه وسلم قفك مؤمن كيه قلبي يسو إيمانك فرديه مركو وقفو أما سنبري رحضو أما بدنبي قالو أما معصية ذي كل عضو واحد مودابو النبي صلى الله عليه وسلم بور كسو دميسة ورور كقفك كل عضو أما المنافق قفك منافقة دنبي مركو وقالو معصية مركو أي كل عضو waxaad moodaa diqsi hormaray oo saa iska yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa lama aha idan waxyaabaha uu ismahadintu ay inoo horseedo waxa kamida dunuubtii aan galnay baan ilowna wal asl waxa ay dambiga inaynu ooyin ahad ulamaadii hore saabiqiinta radiyallahu anhum salafka aha ayaa habeenkii dhaqan buu lahaa jiray marka saadic soo umada uu la soo tukado ee uu soo noqdo qolkiisa markuu ku cibaadaysto qolka yar uu deganaan jiray wuxuu ka qotay wax qabriga oo kale u eeg halkaas uu galaa markaas uu loox isku qufulaa markay cagtu iyo jaqaftu ay dhamaato ayuu halka ka qayliyaa rabbi irji'uun la'alli a'malu salihan fima tarakt soo quraanku ba akhrin الله مروني سو صار وحي انا دونك كغا ايمد هان وناك وبدله كاسو حبيبتا كاسو اويا عيد با مقلي وغوري كريغي با كجيرا marka naftu halka yar u timaado ayu albaabki iska jabiya kaaso soo baxa markaasuu yiraahdaa ya nafsu ha qad udti faf'ali ma qad qulti nafay lagu soo celiye imika waxaad imika lahayd samee soo xisaabtan adag ma xisaabtan adag qofta wala xisaabtamayo
maaha asbuuc yawmiyan habeen walba isla xisaabtamaya oo waa sida aniga iyo adigana laga rabo markaynu cishihii dhammayno ee caruurtii hagaajisid ee odaygii raali gelisid wax walba aad dhammaysid talaqa orana aayar fikir haye maanta salaadihiisay ahaayeen wallahi alxamdulilah rabbi alcaalamiin xiliyadoodii baan tukaday alxamdulilah rabbi alcaalamiin caruurtii ma hagaajiye haa odaygii ma alxamdulilah dariskii iyo jiiraankii haa wax ma ii ziyaadeen noloshaydii maanta adduunkaygii wax waa ii ziyaadeen aakhiradii maxay tul wax ma siyaasaday haa intaa markaa tiyaada alxamdulilah ilaahu adaa i waafajiye intaasoo wanaaga ilaahay iga aqbal seexo soo warcad ma ama wallahi maanta salaadii duhur horta cidhiidhi bay gashay casar bay in yar u dhowaatay gabadhii dariska ahaana waanu isku dhacnay jaarkiina waan yar aflagaadeeyey maanta in yaro xan ahna waanu samaynay markaanu qadaynaynay waxna waa samaynay qolooyin baanu cunnay akalnaahum aklan hayad baa saasoo kala maxaan samaynaa hadda ilaahayow ballan baan kula gelayaa intaynaani mar dambe iga dhicin ilaahayow cumrigana ii barakee wixii yaraaya iga siibtayna ghafuurun kariimun waduudun ra'uufun jaliilun cadiimun ayaa tahay aniguna mudnibun muqasirun ayaan ahe ilaahu labadaa isku qaadoo addoonnimadaydana ii garo rabbinimadaadana waxa iga sii ilaahu ahdiyo ballan baan kula gelayaa towbad ma wax weyn ba ma duruus badan ba ma cilmi ballaadhan ba ma mashaayikh baad fatwo ka rabi mise naftaadun baad habeen walba intaa haddaad samaysid qalbigaaga iyo iimaankaagu iyo taqwadaada iyo khashyadaadu iyo towbadaadu iyo awbadaadu iyo rajaagaaga iyo khawfkaagu intuba sideebay noqon kulla layla haddaad saamaxaytoona isku xisaabisid soo markaa ma haysid xaasibuu anfusakum qabla waar isla xisaabtama intaan laydinla xisaabtamin acmaashiinana miisaama inta aan laydin miisaamin waa qofka caqilka leh shuuf هذا إمك قولين كان تجارته هذا أصحاب البخارات قولين كان بخارات قشة قيسة قناع سجل إمك اللي هي مية سيحذان هذين إلا حساب تمام هل تعتقد شلمات كمقل هذا بتاع المقل ها إلا لا بحي دين أنت ساينا مقن ساسو كلا يجوا نمبر وأقبي سيحذان صبها هذا $20 laakiin naftaadii iyo cumrigaaga iyo aakhiradaada iyo raaligelintaadii iyo jannadii iyo aakhiro haddaanad noloshaada intaad nooleedba walaashay ka waran marnaba haddaanad naftaada la xisaabtamin intaad nooleedba قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة وريانا إلهي بالنبي لابا اسكو راعة أما مدمد أبحى حسابتما أو فكرة نبي محمد موالنا صلى الله عليه وسلم عاد وحينا ليلة مركا أما صاحب عدك كوجدو وحتى ما تروح حسابتما نايبر كارينيه وحيل أجو أما كلي أبحو أذيكم حتى ولا إصلاح حسابتن إذن نفترض أو كعجب جلسا وجو خطرت يكون لسا ودروبت هذا بيكون لو سينسا قلبك وجودن بيا وحيابها وجيستو إسعجبينتو تتكاكو نعيا صور ربها قفك فانك بدل ما يرجع ليه يبقى لما جعله أنا سميي أنا إيري أنا عيد مقعي كوسو بحذي ضيح أنا لا هضلي مدح كمان ناس قرنا وحول بأنا سميي وحول ما أنتي وان فردي أنا لي ويدي فانك فرها بدل تتكون نعبة تتكون مجعله إذن أنت سوق به وما هذا أنت اسمه هذا سا خطرت أي لا هي يمشي أي كوهر سيدي كرتو waxaynu in badan ku celcelinay dhammaantiin waxa aynu filaynaa oo aynu sugaynaa oo ilaahay aynu weydiisanay oo aynu ku celcelinaynaa gargaar ilaahay sawma in ilaahay inoo gargaaro ilaahay baan ka filaynaa subxaanahu wa tacaala diinta inuu ilaahay u gargaaro nafaheena ilaahay inuu u gargaaro waxaan rabna ilaahay inuu ina siiyo waxaynu necabnahay ilaahay inaga qabto inta aynu jecelnahay ilaahay hagaajiyo inoo hiiliyo ina hagaajiyo soo intaasoo dhan shay aad doonayna maaha dhammaanteen qof kastoo inaga midihi in yar qof kastoo inaga midihi xoogaa yar baa u xidhan hoosta oo ilaahay ka doonaya iyo in ummadda oo dhan uu la doonayo ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu siiyo iscajabinta qofku iscajabiyo ama uu ismahadiyaa waxay dib u dhigtaa gargaarka ilaahay bay dib u dhigtaa leesh laana gargaarkii ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inagu yidhi wama nasru ilaa min cindi illaah gargaarka iyo hiilka iyo hooga Allah subxaanahu wa tacaala xag allunbu maxatoolay ka yimaadaa waxaana shardiina looga dhigay waa markan aan nafta la dagaalamayna in leeyahay sanamkan maanta caawa wixii ka dambeeya haynu daldalno
كتخلصنا مدلدلي كرنا مسوين توقنا مسوينو للقتنا كما مر كلمة مزونين كرنا مرنا يساينا لقدي مرنا ينقع كعتكاري تاسا يقول حق يقولوا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم واتقانا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا intaasoo idin wuxuu ku khatimay yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shay'a cujbiga iyo ismahadintuna waxaynu soo qaadanay inay tahay shirkun khafi shirki dadban oon la arkaynin oo la urinaynin oo uurkaaga ku jira inuu yahay ballan buu ilaahay u qaaday duulka iimaanka laga helay amal wanaagsan daba dhigay ballantaasi waxa weeye dhulkan khulafa idinka dhigi sidii kuwii idinka horeeyay aan u khaliiftay waxaan idin makini diintiina aan raali idinka noqday inay idin noqoto waa islaamka waxaan idinku bedeli cabsida iyo naca dhaxdiina yaala nabadgeliyo ayaan idinku bedeli sharti kaliya idinka rabaa sida adooni rabbi u caabudo meydin ii caabudi waxna ha igu shariik yeelina intaas ilaahay aayada inagu leeyahay jallat qudratuhu wa azama sha'nuhu waaya waxaan ku khatimi hal qodobon isleeyahay waxa weeyaan faa'iido weyn buu yahay oo cudurkan ismahadinta dawo ah dawooyinkiisu waa fara badan yahay laakiin waxaan isleeyahay dawadan haddaynu aad u qaadanno oynu si joogto ah aan u qaadanno sanamkan u yaraani waxa u dawo ah ismahadinta cujbiga التواضع dhulka inaad isdhigtid waliba isdhigid dhulka kaliya ma aha waxaan iri takallufu tawaadu isku kallif iska yeel in aad dhulka inaad isdhigtid si aad naftaada sanka inta aad u qabatid aad u dulaysid dhulka aad u dhigtid ilayya ta'arradti am ilayya aradti idhabi fa inni wallahi qad talaqtuki thalatha maalintii cali ibn abi taalib naftiisu iyo adduunku ay wax u sheegeen intuu baxay buu naftiisa la hadlay cid kale ma maqlayso maanaad ii soo banbaxday maanaad ii lugoyn naftiisii buu la hadlayaa iga tag buu yiri saddex baan ku furay aana rajaa aan lahayn sanku hayaa ka takhalusaya ha iiman buu leeyahay ana hay qabsan Abu Bakrna waa yiri radiyallahu anhu ad-dunya wan-nafs wal-hawa wash-shaytan kulluhum a'da'i fa ayna al-khalas naf adduunka hawada shaytaanka afartaasa igu heeran halkeen mara janna seen u galaabiin Abu Bakr Siddiq radiyallahu hada waa jannada waa loogu bishaareeyay mubashshirun bil janna Abu Bakr Siddiq laakiin maca dalika wuxuu leeyahay afartaasa janna iga horjooga naftayda hawadayda shaytaankii iyo adduunka أفرتاس أيقو هرجون كتلابسن محيطو لي كاري لايا تواضع الإمام الشافعي محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله رحمة واسعة ورضي الله عنه حية العالم علماء ماذا كمذا صاحب المذهب ومن يكو علم الشافعي إمامه فساحته في باحة العلم واسع نكون نكاس عالم يهيبو يري ماشا علمك كداقا وبير بلارن محير إمام الشافعي رضي الله عنه أسمع آدو دقيسو وكأنه نختار كل هذا لياد مودة أذيك لكت هوست أنتو كوجو شيء أيو أذيك كل هذا ليا أور كاجا هوست محيري أرفع الناس قدرا من لا يرى قدره وأكثرهم فضلا من لا يرى فضله أنكو عليو أرفع الناس قدرا من لا يرى قدره وأكثرهم فضلا من لا يرى فضله ضد وحا ugu sareeya qadar qofka qadarkiisaba aan arkaynin dadna waxa ugu fadli badan qofka aan fadligiisaba ogeyn aan arkaynin imaam shaafici halkaas uu ku tagay xadiiskii saxiixa ahaa صحيح مسلم كجري النبي يقول النبي صلى الله عليه وسلم isagoo inoo sheegaya ismahadintu dawadeedu inay tahay at-tawaadu dhulku oo aad isdhigtaa inna allaha awha ilayya an tawaadu hatta la yafkhara ahad ala ahad wala yabghi ahad ala ahad rawahu muslim
wuxuu ilaahay ii waxyooday buu nabigu sallallahu alayhi wasallam qalbigaaga ku dhageyso dhagaha madaxa kaaga yaalaha ku dhageysan isma' bi aadaani qalbik dhagaha qalbigaaga ku dhageyso hada rasuulullah kula hadlay way sallallahu alayhi wasallam inna allaha ilaahay bi awha ilayya wa ii waxyooday anta wada'u wa dhulka isdhiga oo kibirka iska daaya إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد سيانو قفنا قف وغفان ولا يبغي أحد على أحد قفنا آنو قف أظلم حبك كالهدات كو أخردد ووحي نقوني إسعجب قلنتو يا اسم هادنتو waxa ay keentaa faan sayn imika sheegnay iyo dulmi ayay maxay toolay keentaa marka aad naftaada aad buufisid sida bahasha yar ciyaalku ay ku ciyaaraan naqaska laga buuxiyo aad buufisid isku haysatid wax weyn jira imisa qadar oo adigu aanad lahayn oo qof kale uu lahaabad adigu isa siinaysa iskuma ogolid cid kale lib uma ogolid wanaag cid kale uma ogolid maca inaad og tahay ضعيف adigu inaad tahay oo cilmi aqoon ba laakiin baqiga nabigu tilmaamay sallallahu alayhi wasallam ayaa keenta iscajabinta maxaa laga rabaa at-tawaadu ma'a Allah tawaadu kow ilaahay la tawaadu oo inta tilmaamay nabigu makka furay sallallahu alayhi wasallam islaan reer Madiina ahayd oo ragga ku hadal adkayd ayaa nabiga maalin soo agmartay sallallahu alayhi wasallam isagoo geed hoostii fadhiya saxaabadii iskala fadhiya waxay xidhan yihiin la xidhan sallallahu alayhi wasallam bi abi wa ummihi waxay cunaya sallallahu alayhi wasallam markaas inta saa u jaleecatay bay ku tiri eega sida adoomuhu wax cunaya sida adoomuhu meelaha fadhiya adoomuhu la fadhiya bay tiri nabiga waxay filaysaa markaa ayada meel sare in la dhigo oo markaas saxaabadii gabadhii ku dhaqaaqeen iyo edab daraa ku jirta hadalka Soomaa markaasuu nabigu wuxuu ku yiri dacuuha daayabi sallallahu alayhi wasallam fa wallahi inni aakulu kama yaakulu al-abdu wa ashrabu kama yashrabu al-abdu wa inni abdullahi wa rasuluhu bi nabi sallallahu alayhi wasallam idaayabi kabada adoon ilaahay baan ahay rasuulkiisina waa ahay siday dadkaas u cunaana waan u cuni meeshay fadhiistaana waan fadhiisa sufu tawaadu rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam حاتم محوك سو مسلمي إسلام غير ميو نبي وضد مريسا أو النبي صلى الله عليه وسلم وريسانيسا أو النبي مدح ونقول حي صلى الله عليه وسلم إلا أنت عيد ما يسانيسي يدعي كدقاقيسي كما دقاق النبي صلى الله عليه وسلم أما هبا النبي قال لها صلى الله عليه وسلم من غير بادي أبا كلها مكاساك أنتو هلكا قبتين النبي صلى الله عليه وسلم أو سو قنديي أو قورتي شريف كالنبي صلى الله عليه وسلم عصاتي قندنتي أيكو يا بني عبد مناف إنكم قوم مطل إستغل ما هنا غير بني عبد مناف وبو يردول وحاتهم أما هذا مركا قادتان آن ليدين كهلين ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأما هل يقول له اللهم صل عليك سيدي يا رسول الله يا أبا القاسم اللهم صل عليك سيدي يا رسول الله وإلهي وكيري صلى الله عليه وسلم بوره دهب مكا قدق نبي ملك مكا قدق يا بقر مركا سيدي مي الضوم بانا هي رسول إلهي مالنا هلا أو مهد عليا مالنا قاجوضة أو صبر بالنبي صلى الله عليه وسلم نبا النبي مقالة دحديد ودada ku haysto le nasi ama hadaan kugu lahayn Umar ibn Khattab sayf la soo cararay baqtigan munaafiq ay ugu daabu yiri ana aqaana jidka uu maray saasuu nabi maxamed ula hadlaya sallallahu alayhi wasallam markaasuu nabigu yiri daa Umar isagana waxaad ku amartaa inuu wuxuu igu leeyahay si wanaagsan ii weydiisto anna waxaad igu amartaa buu yiri Umarow waxa la igu leeyahay si wacan inaan u bixiyo nabiga sallallahu alayhi wasallam hada rasuulullah tawaadu nabiga sallallahu alayhi wasallam in barayo waxa uu dilaya maxay ismahadinta sujuudi salaada dheer cibaada dheer Aisha radhiyallahu anha dambigaagii hore kii dambe miyaan la dhaafin afala akunu abdan shakura adoon مهد عليا إنا نقضم حيثولي ميانا أحين عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللهم صلي وسلم وبارك عليك عمر رضي الله عنه أيا إساقو فرس كيسي سارا أو خادم كيسي للصعودو عمرنا سدح لا يقو دابد لكوريو يا عمر يا خادم كيسي أو كوهشيي
inay daabadda 3 qaybood u qaybiyaan mar cumar koro mar khaadimkiisu koro marna faraska ay daayaan hanastaan ilaa ay gaarayaan min Madiina ila Masjid al-Aqsa markii miftaaxa Masjid al-Aqsa Umar loo soo dhiibay radiyallahu anhu warda ilaahay wuxuu qadaray markay Madiinatul Masjid al-Aqsa ay soo galeen inuu ahaa markii uu Umar hogaaminayay faraska khaadimkiisuna uu faraska saarnaa markaas ay u socdeen ba meel dhooba ah oo biyo ku qoyay ayay noqotay Umar inuu dhex maro faraskii qaadiyo أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أمين هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه أيام ميل دير كسو عربي عمر وحو أرك ميل دوبا سو مري أو دركي كودا اسكو غوبي markaas intuu qabtay buu ku yiri naga daabo yiro sidan ha ku qaabilin madaxda reer Masjid al-Aqsa way jecelihiin faankay jecelihiin dharkan ku keenaya dharkan xidho buu yiri intaynanu qaabilin kuwan markaas Umar wuxuu ku yiri radiyallahu anhu ya Aba Ubaydah لو غيرك كان قالها الله غيرك مو يراهد بو يري وش يريد بو هستو الله غيرك مو يراهد بو يري نحن كنا أذلا فأعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله دل بين أهين نجح عابد مشركين عزة يا الشرف يا علم يا سرين بحق الله إنه من قدر كيني كرلو قاضي maalintaynu ka ku doorsanno dullinimadii iyo dhar la xidho dullinimadii baan dib ugu noqon doonaa buu Aba Ubayda radiyallahu anhu Allah isagoo dhoobadii ku taalo ayuu Masjid al-Aqsa galay kiristaankii hayay miftaaxa buu yiri buugeega waxa ku qoran ninka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ummadiisa kamid ah ee aanu miftaaxan u dhiibayno dharkan iyo qaabkan inuu yahay baa ku qornaa qayrka haduu iman laha miftaaxa kuma siiyeen buu ku yiri هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما هنتو عمر جيريوذي خنجر كاللح جير لغتاقي أيا سريتي لدرقي مركاسو كيري عبد الله بن عمر بن الخطاب آبا يقاضو للكي دك مركاسو آبا للكي محان كالت دونا طبعا كبيري عيد يدقو عيدي سوقاضو طبعا كي عيد مرمري بير ليش يا ولدي بير آبا يا آبا أنت صاحب رسول الله بأطاي صلى الله عليه وسلم خليفة دي سباد نقط دينتي واضو هيلس جهاد بعد كالشيء عد ما ظلم عدالة ما أنت نادقو تكنا ياس لح خنجر لغا تاقي ما لك يسكن لغا سايود لبن عيد وقو قدسة إلهي بان كبر يا أبوير الله يا هاي إلهي يو لبن كالك يا لعذاب هقليني بان الله الله سبحانه شوف التواضع هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحل قارب كذلك إلهي صحابه ولا تواضع ذي نفط هذا الرب إن الله تواضع دي أدنى يعني كل وينان نبي الله موسى على الدرع فرعون بالي أترك بختك قال إلهني مو شاكته شقك سوق بالي هول دقدقة أيال اللي كسوق أبو نبي الله موسى أنتو شفك قرعدي مورن كل جيب النبي هوش أنا كسوق بحية وحقرتي هوش الله دري وحيابه هاي أبا هم تهي إلا وفوليو قيب كم مذأه إلى أنو هيسن أو أي كم تهي أفتح النمذا يا هذلكو إن أنو هيسن بو أغادي مركاسا وحو يري وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني إني أخاف أن يكذبون نبي الله موسى محو قرطي نقص مقرطي سومها نبي الله موسى كان وحو كقرنا يا آياتني فرعون يا هامان يا قارون يا مصر يا جيزة يا مدحدي جوجتي inuu keligii u bareero inuu rabo qof ka aftahansan oo maxay sameeyaa rid'an garab istaaga marka uu hadlu nabi Muuse yiraahdo rasuulullah baanahay mid daba istaago yiraahdo ha waa rasuulkii ilaahay yusaddiquni u sheegay inaan dab ahay inni akhaafu an yukadhibuun inay ibeenayaan ba rabbi subhanahu wa ta'ala ka baqaya tawaadu naftiisii buu gartay nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabi Allah Yusuf looga sheekeeyay quraanka uga sheekeeyay gabadhii waxay ku dhigtay dulmigii walaalihii waxay ku sameeyeen jeelkii lagu xiray riyadii kadib in la yiri boqorkii baa riyoodo si degdeg ah lagu ugu baahan yahay guriga madaxtooyada caawa kaalay qof 9 sano xidhnaa oo la yiri boqorkii ku xiray ayaa si degdeg ah caawa kuugu baahan soo ma degdeg ilahayn nabi Yusuf uu diiday
ma baxaya buu yidhi gabdhihii dembigii galay bal waxa ay igu qoonsadeen dib iskugu noqdo oo aanoo la isoo saarin baraa'a degdegi ha ii timaado soo qur-aanku saama ahayn nabiyullaahi maxamed dhegaysa sala allahu calayhi wasalam oo walaalkii fi ddiini waalcaqiida nabiyullaahi yuusuf la sheekaysanaya wuxuu yidhi raxima allaahu akhii yuusufa walaalkay yuusuf allah u naxariista buu yidhi dhegayso akhii yuusuf allah ha u naxariisto hee low ataanii alrasuulu bacda tuuli alxabsi la asractu alijaaba haddii ninkii loo diray nebi yuusuf inuu ka saaro jeelka degdeg haddaan anigu buu yidhi nebigu meesha nebi yuusuf joogi lahaa oo intaa aan xidhnaan lahaa oo laygu yidhaahda caawa bax dhaqsaan u bixi lahaa buu nebigu sala allahu calayhi wasalam hee laakiin nebi yuusuf muxuu yidhi irjic ilaa rabbika fas'alhu maa baalu nisba nebi maxamed muxuu qiray markaa sala allah slam walaalkii nebi yuusuf muxuu u qiray darajo ayuu u qiray nabi maxamed sal slam waa tan ina laga rabo nafteenna marka aan ka adkaanayno inaynu walaalaheen u qirno waxa ayna dhaamaan waxa ay haystaan waxa ay ku wanaagsan yihiin oo aan la isxaqirinoo mawaahibta iyo qadarka uu walaalka iyo walaasha ay leedahay inaad sheegtid ood u qirtid arrintaa waad igu dhaamtaa taa waad naga fiican tahay xagga maamulkaadaa ku fiican xagga dacwadaadaa ku fiican xagga heshiisiintan kaaga fiicanay wixii way isdhammaystirayaane wax kaamili maxay tolay ma jiro إنها سيان إن شاء الله تعالى كو ختمي وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه جزاكم الله خير